بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد الحو إن شاء الله تعالى وحين قادنينا قيبتا فرتين سديداد حال انت مسألوينك حسابتا سليدنا ما انت وحول أساسنا سوسعتا هدي لبدي بي إيا أور لعبتو دسكوتا هاي كون بقولي $60 markii aan isbarbar dhigno halkii awr wuxuu dheeryahay halkii dibi $220 haddaba qiimaha halkii awr waa imisa qiimaha halkii dibina waa imisa haddaba masaladan aynu ka shaqeyn doonaa insha Allah taala marka hore inuu fahamno bal awr iyo laba dibi waa hal awr iyo laba dibi markii la isku daro lacagtoodu waxay isku noqon doontaa $180 haddii la isbarbar dhigo ama inuu isbarbar dhigno halkii awr wuxuu dheeryahay halkii dibi $220 haddaba waxaan doonaynaa soo saarno halka awr iyo halkii dibi qiimihiisu meeqa noqonayaan ugu horreyn masalada waa inuu dhisnaa anagoo isticmaalayna ama adeegsanayna darsoomyaasha x iyo y kaliya kuma qasbanayn ani variable kasta isticmaal kartaa insha Allah taala marka x iyo y baynu adeegsanaynaa waxaan ku dhisi doonaa select simultaneous equations ama slaydooda jira ugu horreyn x waxaan qaadanaynaa awrka ama halkii awr qiimihiisa waxaan qaadan doonaa x halka y aynu u qaadan doono qiimaha halkii dibi balse su'aashu waxa ay tahay waxa halka hadda inoo yaala waxa weeye laba dibi iyo hal awr maadaama laba dibi iyo hal awr tahay halkii dibi aynu way u qaadanay labada dibi waxay noqonayaan 2y oo macnaha y oo halkii dibi ahayd waxa lagu dhifanayaa laba maadaama ayagu laba yihiin maadaama qiimaha halkii dibi ee halkii awr iyo labadii dibi ay tahay 180 waxaan leenahay halkii awr aynu u qaadanay x waxaynu ku daraynaa dibiga ama labada dibi aynu u qaadanay 2y ee halkii dibi ay u qaadanay labadii dibi markaas waxay noqonaysaa 2y qiimahoodii weeye waxaan ku daraynaa 2y intaas marka waxay leeyahay qiimahooda oo ah $180 maadaama equation ka hore aan dhisnay warku intaa kuma keenay equation labaad baan jiri doonaa insha Allah aan dhisno markiinu isbarbar dhigno halkii awr waxa uu dheeryahay halkii dibi $220 ayuu dheeryahay halkii dibi halkii awr markii aanu isbarbar dhigno haddaba si aan u shaqeyno waxaan leenahay equation labaad aynu dhisaynaa x oo u qaadan halkii awr ayaa qiimihiisu imika wuxuu noqon doonaa qiimaha halkii dibi oo lagu daray marka $220 waayo halkii dibi ayaa waxa uu dheeraa $220 haddaba halkaana waxa inooga sameysmaa equation kale ama isla kale haddaba labadii equation aynu soo dhigno ay markaan inooga shaqeyno qaab badan baa looga shaqeyn karaa iminka laakiin waxaan isticmaalaynaa habka isku bixidda ama bidariiqati alhadaf habka maxaan ku raadin isku jaridda ayaynu isticmaali doonaa insha Allah marka equation-ka hore aynu soo qaadno equation-ka hore aan haysano waa x plus 2y equal 180 degree $1180 way equation labaad aan haysano waxa waaye x equal y plus 220 oo y lagu daray $220 bay ahaan $200 buu halka markaan joogno waa x equal kan korna x plus 2y equal laba habad sameyn kartaayo ama x ka gudaha geli y da gudaha geli calaamadeedu hadda maadaama plus ay tahay minus ku geli ama x ka gudaha geli marka si equation-ku isku ekaado y da gudaha gelinayna waxaan leenahay marka hore waxaan soo qoraynaa equation hore waxaan leenahay x plus 2y equal 1180 hoose waxaan noqonayaa marka x y da gudaha soo geli waa minus y equal xagana waxa ku soo haray tiradii oo ah $220 balaaska wala muujin kara wala iska dhaaf kara badana waa la iska dhaafaa y dan gudaha waxay ku soo gashay negative-ka
planted y-da gudaha negative kusoo geli macnaheedu waxa waaye calaamadeedo plus minay tahay laba dhinac ku dar iyadoo minus ah halkaa bay ka bixi doontaa dhinacana minus bay kusoo geli doontaa. Okay, si aan u isticmaalno marka habka isku jaridda ayaynu hadda waxaan u jeednaa in habka isku jaridda waxaa jira saddex shardi ay tahay in la fiiriyo markii la rabo in la isku jaro. maxaan ku yiraahday laba variable hal variable ama qaybta hore agasta ama waa in la isku jaro. hadaba waxaan leenahay shardigaas ama shuruudahaasi maxay yihiin? shuruudahaasi hadii halkaas ku fiirino waxa waaye kow in equationka labada xabe ee la isku waayo marka la rabo markii la jaro labo y ama x in la isku jaro shuruudaha la doonayaa waa saddex. saddexdaasi waxa weeye kow inay yihiin different signs macnaha waxa weeye haddii tani plus tahay haddii qaybta equationka hore y-da ay plus tahay waa inay tan hoose ay noqoto minus. haddii aan doonayno inaan isla saarno dhinaca y-da inaan isla jarno. labo waa inay ahaadaan same variable oo macnuhu yahay qayb x iyo qayb y ayaan isla saaraynaa maaha macno waxa weeye same variables waa inay ahaadaan oo doorso meesha la isku jarayana waa inay isku mid ahaadaan. qodobka saddexaad ayadana waxa weeye ay tahay inay laga helo waa same coefficients waa horgalayaasha ama weheliyaasha inay isku mid yihiin. haddii x hadda tusaale ahaan waxaan haynaa x iyo 2x. hadda x tan qiimaheedu ama horgalaheedu waa hal halka x tan horgalaheedu uu yahay labo. marka tan oo kale isku majari karo waa in shuruudahan la ilaaliyo. okay, si aan shubnaa y equal 118 tasdiraaddeeda waxaan jaraynaa iminka qaybta y-da. si aan y-da isla jarno maxaynu yeelaynaa ama aan x isla jarno maxaynu samaynaynaa? bal haddana x waa hal laakiin waxaa ka dhiman calaamad tasdiraaddeeda waa inayna calaamadii markaa calaamadii inuu hado calaamadii si aynu ugu samayno waxaan leenahay qaybtan hoose oo idin waxaan ku dhufanaynaa negative minus baynu ku dhufanaynaa qaybta sare ama equationka qaybta kore hoosaan usoo ceshanayna x plus 2y equal 180 degree. qaybta hoose laakiin negative kooda dhufa guud ahaan systemkooda waa minus x plus y equal minus 220 ayay noqon doontaa insha allah. intaa markay noqoto kadib waxayaan kor u tukanno. intaa markay noqoto waxaynu yeelaynaa marka haddana waxaan isla jaraynaa labada hoose ee x iyo x oo maadaama midna minus midna ay function isku mid yihiin horgalayaashana ay wan yihiin. marka labadan kale maxay yeelayaan? labadan kale waa isku darsoomayaan labadan dambe waa isku darsoomayaan waxay noqonayaan 3y waxa weeye waa 2y plus y. qaybta dambana way kala jarmayaan waxaa soo bixi doona 960. haddaba si y u helno waxaan leenahay horgalaheedu waa 3 dhinac kasta u qayb 3 u qayb 3 iyo 3 waa isla baxayaan. ugu dambeyn marka y maxaynu helaynaa? y waxaan leenahay inay leeg tahay markii loo qaybiyo 963 markii loo qaybiyo waxaa soo baxaya 320. haddaba qiimaha aan haysano iminka waa 320. y waa qiimaha hal dibi oo kaliya ayuu taagneede. marka x aynu raadina bal marka x aynu raadinaynaa equationka hore aynu soo qaadanaynaa oo ahaa x equal equationkan halkaa ka muuqda aynu soo qaadanaynaa x equal y plus 220 ama equationadan kale ka danto aad qaadan kartaa marka equationka hadaynu qaadano y equal x equal asiga diyaarsan x equal y plus 220. haddaba x waxa uu la ekaanayaa qiimihii ay soo helnay waa 320 ku bedel marka 320 oo lagu daray 220. haddaba x isna wuxuu noqon doonaa qiimihiisa wuxuu la ekaan doontaa 540 ayuu noqon doonaa. ugu halbeegii hore aan ku shaqeynayno wuxuu ahaa dollar. okay, warkii marka hadaynu soo koobno iminka y hal y oo kaliya markaynu haysano waxaan haysanaa qiimaha hal dibi. haddii laba dibi la yiraahdo qiimada wuxuu noqonayaa 2y macnaha maxay la ekaanaysaa
kuwa marka waxay kaanaysaa 2 lagu dhiftay 320 haddii 320 aan 2 ku dhifano waxaa soo baxaysaa hadaynu 320 2 ku dhifano 640 ayaa soo bixi doonta 640 ku macnuhu waxa weeye qiimaha labada dibi wey qiimaha halkii awrna hadda waxaa inoo soo baxay 540 aan ku darno bal maxaa soo bixi doona okay intalka waa 0 halkan waa 8 halkan waa 11 marka waa 1180 oo macnaheedu yahay in 1180 dollar ee wadartooda isku tahay lacagtooda isku tahay markii la isu geeyo dibiga labada dibi iyo halka awr qaybta kale aad warkan ku hubin karto waxa waaye inaad soo qaadato inaad warkii dambe ee ahaa qiimaha halkii awr ama qiimaha awrka ayaa halkii dibi wuxuu ka badan yahay 220 waad hubin kartaa 540 maadaama uu yahay qiimaha awrka waxaad dhihi kartaa qiimaha dibiga meeqo ahaa halkii dibi qiimihiis 320 haddii la kala jaro waa in la yiraahdo 220 oo ah faraqa lacagta uu ka badan yahay ama lacagta dibigu awrka uu dheer yahay dibiga halkan waa 0 ka soo bixi doonta halkan waa 2 5 ka jar 2 waa markaysa kaas marka waa 2 marka 220kii asaas ku soo baxaysa hadaba mas'alooyinka in la dhisi karo aad iyo aad muhiim u tahay in arday kasta ee markaas qaata xisaabta inuu dhisi karo insha Allah taala